بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داوداyaasheeda qiimaha iyo qadarinta naga mudanaw halkan waa telefishinka caalamiga ah ee M24 TV xaruntiisa dhexe magaalada Muqdisho waa barnaamijkeena toddobaadlaha ee xubinta ciyaaraha oo aanu alaabo ku qaada dhigno ciyaaraha caalamka iyo kuwa dalkeena toddobaadkan waxaynu diiradda ku saari doonaa koobka adduunka 2022 oo sanadkan ka qabsoomi doona dalkaasi Qatar inagoo dhinacyo kala duwan ka eegi doono haddaynu ugu horeysiino waxaad ku soo dhawaataan 5 qodob oo aadan ka ogeyn koobka adduunka ma ogtahay in markii ugu horeysay dal Carbeed lagu qabanayo koobka adduunka 2 ma ogtahay in Cristiano Ronaldo kaliya ay uga dhimantahay hal gool inuu noqdo laacibka kaliya ee adduunka 5 koob adduun gool soo dhaliyay 3 ma ogtahay in sanadihii u dhaxeeyay 1938 ilaa 1950 12 sano aanu qabsoomin wax koob adduuna sababo la xiriira siyaasadaha caalamka iyo amniga 4 ma ogtahay in kaliya 8 wadan ay ku guuleysteen koobka adduunka inta kale ee adduunka caalamka idilahaana aanay wali ku guuleysan ma soo ogtahay in 7 kamid ah sanadkan ay marayaan koobka adduunka halka ku dhawaad 26 wadan ee kale aanay ku guuleysan wax koob adduuna kaliya waxa ka maqan sanadkanna xulkaasi Italy imikii haatanna waxaynu diiradda saari doonaa koobka adduunka xilligu soo bilaabmay ilaa iyo koobkii adduunka ugu dambeeyay ay ku guuleystay xulkaasi France ee 2018 imikii haatanna ahaa difaacadayaasha sanadihii la qabtay iyo sida loogu kala guuleystay koobka adduunka waxa la bilaabay sanadii 1930 xilligaasi oo ay ku guuleystay xulka Uruguay 1934 waxa ku guuleystay xulka Talyaaniga halka 1938 ay ku guuleystay isla xulkaasi Talyaaniga oo difaacday koobkaasi 12 sano oo aan la qaban koobka 1950 waxa ku guuleystay Uruguay halka 1954 ay ku guuleysteen Germany halka 1958 markoodii ugu horeysay ay ku guuleysteen xulka ugu koobka badan ee Brazil 1962 isla Brazil ayaa difaacday 1966 waxa ku guuleystay koobka adduunka xulka saddexda libaax ee England kaliyana waa koobka ay haystaan 1970 waxa ku guuleystay Brazil 1974 waxa ku guuleystay Germany 1978 waxa ku guuleystay Argentina oo markoodii ugu horeysay hantay koobka 1982 waxa ku guuleystay Italy 1986 waxa ku guuleystay Argentina 1990 waxa ku guuleystay Germany 1994 waxa ku guuleystay Brazil 1998 waxa ku guuleystay France iyo Zinedine Zidane sanadii 2002 waxa ku guuleystay Brazil iyo Ronaldo halka sanadii 2006 ay ku guuleysteen xulkaasi Italy 2010 waxa ku guuleystay xulka Isbaaniya oo kaliya koobka ay haystaan 2014 waxa ku guuleystay Germany 2018 oo kan ugu dambeeya waxa ku guuleystay xulka France daawade sanadkan keebuu noqon doona xulka ku guuleysan doona 2022 imikii haatanna waxaynu dul istaagi doonaa koobka adduunka kaliya waxa ku guuleystay 8 wadan waad isweydiinaysaa 8 wadan ay noqon doonaan haddaba ku soo dhawow 8 wadan iyo sida ay u kala guuleysteen koobkaasi xulka ugu badan koob adduunka guuleysta waa xulka Brazil Seleção oo haysta 5 koob halka xulka Germany walow Jarmalka bari iyo Jarmalka galbeed ay kala haayeen ay isu geyn haystaan 4 koob xulka Talyaaniga haya isna dhinkiisa haysta 4 koob Argentina iyo France waxa ay ku midaysan yihiin min 2 koob xulka Uruguay waxa uu haystaa kaliya labadii koob ee xilliyadii ugu horeysay uu ku guuleystay koobkan xulka England waxa uu haystaa hal koob uu ku guuleystay sanadii 1966 xulka Isbaaniya ama Isbaanishkuna waxa uu haystaa hal koob uu ku guuleystay sanadii 2010 haddaba su'aasha isweydiinta leh malaayiinka kun ku baxaysa waxay noqon doontaa ma waxa ku guuleysan doona xul cusub oo ku soo biiri doona xulalkaasi mise 8 wadan mid kamid ah ayaa ku soo laaban doona imikii haatanna daawadayaal ummadda Soomaalida qaybo badan oo kamid ah oo xiiseeya kubadda cagta gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada Muqdisho oo mikrofoonka M24 TV la dhex qaaday ayaa waxa ay saadaaliyeen ciyaaraha koobka adduunka iyo cidda ku guuleysanaysa iyo cidda ay taageersan yihiin nala daawada salkan waxa rajeynaa xulka Argentina ku guuleysto Messi especially Messi inta kale waxba u maahay
aad baan ugu faraxsanahay maadaama waddan carbeed lagu qabanayo waxaan jeclahay xataa sanadka xiga Afrika lagu qabto Soomaaliya ay ku xitaa rajeyn doonaan marka ilaahay ka rajeynaa insha Allah marka aniga hadda xulkan taageero waa xulka Argentina xasatan in Messi leeyahay taageero marka asaga guusha u rajeynaa cid kale waxba uma hayo xulkayga labaad waa Spanish koobka adduunka sanadkan waxaa leeyahay waxaa qaadi karo Messi maxaa yeelay boqolkiiba 80 misaaliyo waxaa leeyahay Argentina maxaa yeelay Argentina Copa America waxay ku dhashay ilaa hadi 49 kulan miyaan ambiti neta umlana inay ka badan tahay waa jeclaa mas'uuliyad neta Argentina sanadkan waa xoog weyn tahay Argentina isku xiran yihiin goolaha fiican ay haystaa Emiliano Martinez la yiraahdo oo Aston Villa u dheelay goolaha aad oo maxaan lahayn difaaciyada kuleena way Argentina macni muu ciyaaraan dadkaas Messi oo ciyaaraan Messi maxan waa maxaa la mar walba Messi ka saacidayaan Copa America markii la qaad ciyaartooyda markii la qaad waa la carraa maxan la orda waa team Messi oo jilbaha dhig ciyaartooydan amar le nin la amal Messi carrada amar Messi la wala cadeen oo jilbu joogsan ما شاء الله Argentina xul fiican waa sanadkan iyada qaadaysa World Cup-ka oo yani xamaasadiisa aad u yaraaday oo ciyaartooy professional ah oo qaarna ay dhaawacmaan qaarna laga soo tagay sida Pogba kaleeto Kanté kaleeto sida yani ninka la yiraahdo Madison kaleeto sida ninka la yiraahdo ilaahay wuxuu sameeyay waa ciyaartooy waa sayd u badan waa Mohamed Salah oo kale xulkiisa waa hareen isaga laftirkiisa waa xamaasadiisa watay ninka la yiraahdo Haaland oo kaleeto waa nin xamaasadeedii qarankiisa waa haray waxa waaye inkastoo macnaha wixii World Cup-kiina oo la isdhigi karo wax xamaasad oo leeyahay laakiin inkastoo waxa boqolkiiba 80 ciyaartooyda oo professionalka oo ay ka hareen haddii qarankooda hareen iyo haddii yani sida ciyaartooy ahaan laga reebo kaleeto ama macallin isku dhaceen oo kaleeto World Cup-kan waa aniga waa iska xamaasadeenana mooyee boqolkiiba 80 ciyaartooyda qaarkood laga soo kaltay هذه سنة كان عتايرسنا كوب الدنيا وحواي برتقيسكا أو يعني سيد هورا أو لقسو بدلي سياو بدن عيارتوي بدن هذا نصاب بحي بريمير ليج iyo wadamo kale Kooriyaala kale ka ciyaaraan markay sanadkan mid kasi fiican oo fadhiyo markay sanadkan Portugiiska waxa uu rajeenaa inay ku guuleysan doonaan koobka World Cup-ka ee sanadkan sidoo kale waxaan ka hadlaa dalka Qatar oo sanadkan si aad oo kala kiciye oo koobka yani lagu qabanaa Qatar yani sharciyada diinta Islaamka si oo dooreen oo waxyaabo badan ay ka bedeleen sida dhaqanka oo hore oo gaalada qamri iyo waxyaabaha noocaas inay sheeg xalaa ka kansaleen garoonka runtii sanadkan naadiga kaliya taageera waa xulka Portugiiska Blembino waxay Croatia oo yani waxa taageera Real Madrid Luka Modric iyo ciyaartooy badan oo ay sheegeen Real Madrid markay hadduu iga aro Ronaldo muu maleynayo inuu Modric gaari doono daawadayaal waxa la soo gaaray guntiga gunaanadkii barnaamijkeena xubinta ciyaaraha waa laaba idiin soo tabiyay anigoo Ibrahim Salaban Hanuuniya idinkana imaanaya xarunta dhexe M24 TV magaalada Muqdisho tan iyo kulan la mid ah oo aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo amaan Allah